khataraha uu dalku wajahayo qayb badan ninkii aqoonyahankii iga horreeyay ayaaba sheegay. laakiin waxaan rabaa inaan mid dibadda iyo mid gudahaba u qaybinno. Soomaaliya xaaladda ay ku jirto aniga waxaan aaminsanahay inay tahay xaaladdii ugu adkayd uu dalkan soo maro taariikhiyan sida xorriyadda loo qaatay. Hadda waxaa laga sii guurayaa shuruucdii caalamiga ahayd ee dunida kala celin jirtay. Waxaa sii burburaya laguna sii kala tegayaa hay-adihii dunida isku hayn jiray. Dagaalkii Bariga Dhexe iyo caqabadihii ka jiray Badda Cas ayaa annaga hadda Soomaali haddaan nahay waxaa muhiim ah inaan fahamno inuu soo galay xuduudda Soomaaliya. Faragelintii shisheeye marka oo Soomaalidu ay sheegi jirtay ayaa waxay noo timid iyadoo hadda ay Israa'iil hogaaminayso. Waxaan dhexda marka uga jirnaa oon dhexda u galnay quwado waaweyn oo is eryanaya. Gudaha dalkeenna midnimadii dalkeenna ayaa khatar ku jirto. Somaliland waxa ka dhaca waad ogtihiin. Puntland iyo Jubbaland oo dowladnimadii Soomaaliya ka sii fogaanaya. 3 dowlad goboleed oo kale oo jira oo muddo dhaaf ah oo iyaguna aan sharciyad ku fadhin. Dowladdii federaalka oo ay sharciyaddii ka sii dhammaanayso iyo maareyntii xilliga kala guurka ahayd oo aan heshiis laga ahayn oo aan la ogeyn 4 bilood iyo bar inta dowladdan waqtigeeda 4 bilood iyo xoogaa ugu harta aan la garanayn meesha halkaa laga aadi doono. Dalka khatarta ku jirana wuxuu u baahan yahay dowlad sharciyad haysata waqtiyada soo socda oo dhan. Dhaqaalihii dalka shaqo la'aantii oo kor u kacaysa, ganacsiyadii oo hoos u dhacaya, ganacsato badan oo Soomaaliyeed oo dalka ka sii hayaamaya, dhaqaalihii dunida ka imaanayay oo hoos u dhac ku yimid. Abaaro ayaa hadda saameynaya dad badan oo Soomaaliyeed oo 4 milyan iyo 400 kun oo ruux ka badan. Saasay tahay dowladda miisaaniyaddeeda oo ku tiirsaneed weligeed kab shisheeye inteeda badan 60% iyo xoogaa ayaa hadda waxay ku soo aadaysaa dunida oo isbeddelaysa naga sii aamin baxayso iyo annagoo weli kala qoqoban. Dastuurkii dalka heshiiska lagu ahaa oo dowladdeennu laashay ayaa isna wuxuu qayb ka noqday khatarta Soomaalidu ay wajahayso oo midnimo darrada ah. Shabaab iyo Daacish oo ah cadowga dowladnimada Soomaaliya oo mar walba khatar ku ah shacabka Soomaaliyeed ayaa iyaguna labada dhinac naga taagan. Intaasoo jirta ayaa hay-adihii dowladdu ay sii daciifayaan. Intaasoo khatar ah oo gudaha dalka ka jirta. Iyo intaasoo khatar ah sidii walaalkay iga horreeyay uu sheegay iyo intaan idiin sheegay oo dibadda nooga imaanaysa ayaa waxaa ku soo aaday inay Israa'iil dalkeenna ku soo duusho oo ay Somaliland ka soo bilowdo. Su-aasha aan isweydiinayna haddii aan Soomaalinaha waxay tahay maxaa ku soo beegay xilligan? Aniga waxay ila tahay inaan u fiirino ama aan ku fiirino sawirka guud ee ka jira dunida, gaar ahaan dagaaladii la soo maray oo hore loo soo maray qaarna ay weli socdaan. Wixii Liibiya ka dhacay, wixii Ghaza xasuuq ka dhacay, wixii Suudaan ka dhacay, waxa Yaman hadda ka socda oo Xuutiyiin iyo Iiraan iyo Israa'iil is haysta. Dagaalkii isaga ahaa ayaa waxaan aaminsanahay sidii u soo socday inay Israa'iil soo geliyeen xuduudda ummadda Soomaaliyeed. Maadaama marka Israa'iil aanay u dalaynayn Somaliland ama ummad Soomaaliyeed oo ay timid danaheeda gaarka ah, waxaan rabaa keliya inaan halkan marka ka sheego in Soomaali ay fahamto in waxa la isku haysto aanan ahayn cid baa la aqoonsaday mase lama aqoonsan. Haddii ay Soomaalidu dhihi jirtay faragelin ayaa dalka ka jirta iyadoo nool ayaan hadda hor taaganahay.